السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meel kastoo dunkad ka joogtaan waan idin salaamay. hal daqiiqo muuqaalkan shacabkaygii reer Soomaaliland baan la hadlayaa niyow dadka maarta ariga wada fadhiya ka maarta oo ariga maarta oo nimankii habar wal ma garanaysa nacala siinka hooyadii ku yaraatay hanga naga saan loo eegni saasu been loo eegay ka hor abtiyaasha habar shacaytaan ku eegay ka hor ana hooyadii lixda kulo jeero sabab ilada ila dhashay was maskiliina ka hor wartagaalka inageeya nacala siinka hooyadii ku yaale way qalqaynayaan ka hor gabigood be wartagaalka hooyada siinkeeda haba abtiyaal ana soo socod kaliya ku fulan iska day muuqaalkan waxaa ka muuqda horta maadada koowaad dadka meesha jooga horta waa dad balwad isticmaalaya, haddana dad cabsan gebigooda. waxaa kaaga sii daran ninkaani wuxuu leeyahay meesha dhaan anagaa ku falana hanana geeyo. waana la og yahay waxa ka socdo dhulkaas Somaliland. maanta ugu dambeysay guryaha la iska gubay, guryaha la iska gubay waxa ka daran aa la soo maleegay hadda socda. waxaasoo ah in la leeyahay oromo iyo maaragtay gaalo kale inti meesha la keenay wixii Ethiopia ay ku faani jirtay, taasoo ah in badda Soomaaliya mase heebaha Soomaaliya meel ka mida ay Ethiopia ay rabto inay bad ka samaysato, oo taasoo ay sheegtay haddii awood isticmaali weyso inay xeelad isticmaali doonto. isla xeeladii aa la soo diray odayaal maaragtay siday sheegeen ee oromo ah maaragtay aa la soo diray, weliba odayaasha ugu waaweynaada oo tusbaxyada halkaa jiidaya oo dadka ugu waaweyna. taas waxay ku tusisaa xeeladii uu gaalka weynaa Abiy Ahmed uu sheegan jiray in hadda uu soo daayay, taasoo ah inuu xeelad isticmaali doono. xeeladii maanta wuxuu ka dhigay Soomaalida waxa la ogaaday inay tahay shaarar qabiil, oo maaragtay dhanka qabiilka inta badan laga weerari karo, laga geli karo. taasoo ka dhigan maanta meel kastoo Soomaaliya ka mida waa la iscunayaa, iscun baa ka jira, aad baa la isku cunayaa. taas oo ka bilaabatay maaragtay maadaama hadda dhanka koonfurta markii la joogo dagaalkii xubka ugu badnaa, maantana aada muddo sanad iyo dheeraad waxay kasoo bilaabatay dadkii ku faani jiray inay haystaan nabadda, ammaanka. xitaa markii Soomaaliya la joogo hadda la sheegan jiray oo maaragtay Soomaaliya qayb kamida nabad baa ka jirta la dhihi jiray, maanta waxay ka jirtaa meelaha ugu xunxun mise meelaha ugu qaabka daran koonfurta markii laga tago. maanta waxay noqotay Somaliland, taasoo ah in jifo laisku cunay. markii Abiy Ahmed uu ogaaday Soomaalida inay jifo isku cuntay, markuu ogaaday xeer haddana wuxuu gaaray intuu banaanka soo istaago yiraahdo xeebaha Soomaaliyaan rabaa. heebihii Soomaaliya afkiisu ku sheegay haddaan ogood ku qaadan weyno xeelad baan ku raadinaynaa. xeeladii waa uu ka dhaweeyey, odayaal buu soo diray, gaalo uu soo diray. muxuu soo mariyey marka? muxuu yidhi odayaashaas waxay dhaheen baddiina waa baddeena. ereygaas ma aha erey qof oday ah maskaxdiis ka soo baxay, waa cashar lasoo dhiibay, taasoo ka dhigan dhex hadalkaasi hala dhaho. waxba kaaga daran dad Soomaaliyaba daba taagan oo hadalka u tarjumaya, oo oromo haddaynu nahay qabiil isku qabiil baanu nahay, maaragtay ii sheegada badda haddaa badda tiinina baddeena ah,
dhulkiina waa dhulkeena ya waan la ogyahay Ethiopia sida la isku galay Ethiopia sida hadda ka hor la isku cunay kulli aan horta ma soo gaarin mana arag laakiin taariikhda anta la sheego waa mada keliya la isku cunay la isku baabi'iyay boqolkiiba boqol waa la ogyahay taasi waxay ku tusaysaa xilliga hadda la jooga mase saacadan hadda la jooga ninka dalka haysto mase hogaamiyaha ka ah ninkii xilligaas Ethiopia la diray hadduu maanta joogi lahaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi Oromo intay soo istaagto meeshaas inaysan dhihi lahayn baddaanay baddiin waaye waana baddeena aniga askale ma dhihi lahayn waana la ogyahay aan u soo laabano nimankan cabtooyda meesha fadhiya hadday maskaxa waxa maqlayso haddii ay leeyihiin garaad iyo maskaxa caqli waxa maqlo hadday leeyihiin taliyahoodii ugu weynaa meesha lagu qabtay iyo meesha ku xiran way garanayaan dadkii ugu dambeeyay masciidinkii ugu dambeeyay dara dagaalka galay meesha ay ku xiran way ogyihiin xabsiga ku jiraan way ogyihiin maadaama hadda iyaga hadalkood iska yahay hadal iska cabtooya meel fadhiyo iska yahay laakiin hadalladani oo kale waa hadallada caruurta maaragtay maskaxdooda aan gaarin waxyaabaha kicay ka mid tahay xilliga aan maqli jiray mas Somaliland baan maartay ku cawaadaysa ma ay dhihi jirtay waana la laayay waana la baabi'iyay war MSM bilood MSS sano ayaa dadkii aad ku sheegi jirteen inay idinka mid yihiin idinka tirsiin aad ku sheegi jirteen aad dhameynaysan markii ugu horeysay dagaal leedan ku qaaday askartii la baabi'iyay taliyaashii ciidanka la qabtay wixii hub iyo saanad haystana la wareegay laakiin waxyaabaha maanta Soomaaliya meel kasto la joogo markii laga hadlayo waxyaabaha ka dhex jiro waa waxa laga shaqeynayo oo dalal kalena ay ka faa'iideysanayaan taas maxay tahay maanta xeer waxa la maraya gaalkii daraan isdilnay uu og yahay dhibkaan u geysanay uu og yahay ayuu maanta wuxuu leeyahay waana is dhalanay walaalaynu nahay qaraabaynu nahay baddiinaan leenahay dhulkeenaan leedihiin gabdhahaas ka guursan karnaa afaaraha saaso diinaan leenahay dhulkeenaan leedihiin afaarahaas ayaa hadda socda meeshaasi reality dhab markii loo fiirsho waa ogtahay Ethiopia Soomaaliya mar hadday madaxa kor u taagto inay tahay laf dhuun gashay inay ku noqonayso way ogtahay marka intaysa soo gaarin way ugu talagashay dadkan inay madaxa kor u soo qaadin ya tada ka jirta dhulkaasi ka jirta oo galabta ugu dambeysay guriga la gubay ya dhibaatada Soomaaliya haysato dhibaato yar ma haddana anta badan boqolkiiba 70 markii loo fiirsho waa wax laga shaqeeyay mase dhaqaale ku jiro dadkii keliya iswaana lahaa isqaban lahaana waa dadka dhalinyarada ah oo maanta antay meel soo fadhiistay iyagoo cabsan oo leh ana keliya ku filan afkiis waxa ku jiran iskama saari karo ya war Faysal Abdi Bootaanto ku xiran yahay hago bariis ku cunaa ya haddana gobnimada dadka waa loo kala dhashay dadkii intaasoo sanaa leynaysiin dadkii intay soo qabteen ay habsi ku aruureen badar iyo bariis iyo ay siinayaan meel ay ugu jiraan idinkana wiil foodle hadduu halka intuu ka baxo Hargeysa tago habsigaad siisaan idinkoo dhahaya mar baan isdilnay aye خير بين رجينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.